Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Chad. Channelka subscribe si videoda like gare, commentna xagga hoose ku qor. Dalka Chad ama Republic of Chad waa dal ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. Waqooyi waxaa ka xideeya dalka Liibiya, Suudaanna waxay ka xideysaa bari, Jamhuuriyadda Central Africana koonfur, Cameroon iyo Nigeria-na koonfur galbeed, dalka Niger-na galbeed. Caasimadda dalka waa Najima, waa magaalada ugu weyn dalka Chad. Tirada dadweynaha caasimadda waa 721,000 oo qof. Cabirka dalka Chad waa 1,248,000 oo kiiloomitir oo iskuweer ah. Xaggay tahay dalka shanaad ee ugu weyn qaaradda Afrika xagga cabirka. Tirada dadweynaha sanadkii 2018 wuxuu ahaa 15,477,000 qof. Diinta dalka Chad 53% waa Muslim, Kiristaanka Katolikana 20%, Kiristaanka qaybta loo yaqaano Protestant-kuna waa 14%. Xagga diimaha dadka Afrikaanku tahay 7%. Luqadda rasmiga ee dalka Chad waa af Carbeed iyo af Faransiis. Xagga dadweynaha dalka Chad ay ka kooban yihiin 200 oo qowmiyadood. Lacagta dalka lagu isticmaalo waxaa loo yaqaanaa franc. Madaxweynaha dalka Chad magaciisu waa Idriss Déby. Xorriyaddeeda waxay kala soo noqotay gumeystihii Faransiiska 1960. Xagga dhaqaalaha dalka Chad uu ku dhisan yahay beerooyinka iyo xoolaha iyo cashuuraha iyo shidaalka. 460 dadweynaha dalka Chad ku nool waa sabool. Xagga dakhliga maalintii soo gala $2 ka yar. Xagga dalka Chad uu haysto kayd fara badan xagga shidaalka iyo dahabka iyo uraniumka. Chad waa dalalka ugu saboolsan qaaradda Afrika iyo adduunka. Xagga dadweynuhu ka shaqeeyaan xoolo dhaqato iyo beerooyin. Xagga soo saarka shidaalka uu ka bilaabmay sanadkii 2003. Kayd badan ayaa ku yaala dalka Chad, laakiin dowladda Chad weli lama soo bixin.
channelka subscribe si videoda like gare kumadna xagga hoose ku qor